toban caado oo aad ku dhisi karto garaadkaaga. dadka waxay isku dhaafeen maskax iyo caqli iyo firfircooni. qayrka wuxuu horumarka ku gaadhay adna weligaa waxba kugu hirgeli laayahay qadarta alle ka soko. waxaa weeye qaabka uu ruux kasta isku habeeyo noloshiisa iyo fursadaha uu haysto sida uu uga faa'iidaysto. 10 shay haddaad caadaysato noloshaada maalin kasta waxaad samayn kartaa isbeddel weyn, waxaadna kobcin kartaa maskaxdaada iyo garaadkaaga. 1. internetka si nidaamsan loo isticmaal. kaba soo qaada hadda muddo intee dhan ayaad ku jirtaa Facebook ama WhatsApp ama Viber ama YouTube-ka. maxaadse ka faa'iidaysataa? waxaa habboon waqtiga Facebook ama kan WhatsApp-ka inaad u beddesho waqti aad ku qaadato duruus ku anfici karo noloshaada, duruus xagga diiniga ah iyo duruus xagga adduunka ahba. waxaad samaysataa darsi taxana ah sida kitaab diini ah ama buug saynis ama mid taariikh ah. mid marka dambayso ku kala bilow. internetka waxyaabo badan ayaa laga helaa iyo masaadir iyo maktabado aad iyo aad u ballaadhan. 2. facebooka xilli go-aan gal, waxaadna ka baxdaa xilli go-aan. waxaad eegtaa caalamka wixii kusoo biiray iyo asxaabtaada waxay soo shargareeyaan xilligaas oo keliyata. 4. waxaad samaysataa listi toobikyada aad dhamaysay aad meel ku xidhay. tusaale ahaan waxaad rabtaa inaad wax ka ogaato telefoonka aad wadato sharikadda samaysay hadduu yahay Samsung. wadankii laga leeyahay sharikadda Samsung, goorma ayaa la bilaabay, mobilka siday u sameeyaan, maxay kaga duwan yihiin sharikadaha kale ee mobilka. hadhowna dadka uga sheekee waxaad soo baratay, hana la ogaado inaad tahay ruux ku takhasusay oo aad u yaqaano taariikhda iyo sooyaalka sharikadda Samsung. waxaad isweydiisaa maxaa ku dhacay Soomaalida oo ayna sharikad noocaas u samaysan karin. waxaa laga yaabaa inaad ummadaada sahan u noqoto oo aad u faa'iidayso. 5. dadka aad u malaynayso inay ka cilmi badan yihiin la fadhiiso, ayaga la sheekayso. waxaad ogaanay waxaa lagu dheeryahay, waxaadna ka faa'iidaysanay qaabka wax loo qorsheeyo iyo sida mashaakilka loo mareeyo. 6. wax badan akhri. wax akhriska waa laf-dhabarka garaad kororsiga iyo maskax dhisidda. waxaad akhrisataa buugta cilmi nafsiga iyo buugta kobcinta meheradaha si aad u naftaada u dhisto. buug kasta markaad akhrisato waxaad ka samaysataa khulaaso yar oo ah duuduubka buuggaasi, waxaadna ku qortaa meel. hadhow waxay kuu fududaynay inaad haysato nuxurka buuggii aad akhrisatay. hala fadhiisanin ee dadka uga faa'iiday wixii aad baratay. 7. jimicsi samee. jimicsiga waa qayb caafimaadka ka mid ah. jir caafimaad qaba unbaa leh caqli fayow. 8. waqti nasasho ah samayso. waqtigaasi nasashada ah waxaad uga faa'iidaysataa dib u habaynta barnaamijtaada iyo jadwalkaaga maalinlaha ah. 9. waqtiga salaada ku dadaal. haddaad badiso xusuusta waqtiga salaada oo masjidka ku tukato 5 salaadood, waxaad tahay ruux adag oo wax kasta uu go-aansado fulin karo maadaama aad taas go-aansatay oo aadna fulisay. 10. qur-aanka akhri maalin kasto ama dhegayso ama cashir tafsiira dhegayso. jadwalkaagana ha ka saarin arrintaasi. qur-aan akhriska iyo dhegaysiga tafsiirka wuxuu ka caawinhayaa inaad ka fogaato gabidhacyo badan iyo dembiyo badan oo nolosha aad geli. لا نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا